kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena maanta aan ku eegi doono haddii Allah awood leh raali uu ka noqdo waxa ka mid noqon doono xisbigii talada dalka looga adkaaday ee nabad iyo nolol oo taakadii ka qaaday dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xubnaha ugu miisaanka culus xisbigaasi oo gaaray furumaha hore ee dagaalka madaba in xubnaha kale ee xisbigaasi ay ku biiri doonaan dagaalada ka socda gobolada dalka barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa ciidanka dawladana waxay gebi ahaanba isaga soo baxeen deegaanka masaajidka Cali Guduud oo dagaalo qaraar oo aan waxba iskula harin ay ka dhaceen halkaasi barakicii ugu badnaa oo dadka shacabka ay naftooda kula cararayaan ayaa ka socda deegaankaasi al-shabaab ayaana dib ula wareegay dhaawacyada askar iyo dad shacab ah oo aad u tiro badan oo ku soo dhaawacmay dagaalka deegaanka masaajidka Cali Guduud oo cisbitaalada Muqdisho buux dhaafiyay barnaamij wareedkeena ayaan si guud maanta ku eegi doonaa Saciid Dani oo markii u horeysay ka mid noqday wafdi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u raacay dalka Jabuuti maxaa ka jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu rabo inuu meel mariyo qorshaha muddo kordhinta ee madaxweyne Saciid Dani barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa beesha mursadana waxay u dhaqaaqday sidii al-shabaab ay kaga saari lahayd ceelbuur iyo kala shaki soo shacbaxay oo ku aadan habka loo wajahayo deegaankaasi barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso badan balse haddii ay tahay markii kugu horreeyay aad soo booqatay janalkeena saaxiibayaal waxaa idinka codsanayaa inaad rukumataan si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinada iyo macluumaadka xasaasiga aynu halkaani soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin maanta aan ku bilaabo xisbiga talada dalka looga guuleystay ee nabad iyo nolol ayaa taakada waxay ka qaadeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka gaar ahaan Hiiraan Baay Galgaduud iyo sidoo kale Bakool xubnaha ugu miisaanka culus ee xisbiga ayaana waxay gaareen furumaha hore ee dagaalada ka socda dalka xubnaha la xaqiijiyay inay ku biireen dagaalada waxaa ka mid ah Yaasiin Farey oo qayb ka ah xubnaha miisaanka ku leh xisbiga nabad iyo nolol wuxuuna gaaray deegaanada dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Yare Cali gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku shaaciyay in nabad iyo nolol ay taakada ay ka qaaday dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoona xubnaha ugu miisaanka culus xisbigaasi ay gaarayaan maalmaha soo aadan furumaha dagaalka ee ka dhanka al-shabaab talaabadan ayaa waji kale u yeelaysa in xisbiga nabad iyo nolol oo ay aad isku hayaan xisbiga talada dalka xilligaani hogaaminayo ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay u hoggaansamaan xisbi ay siyaasad ahaan ishayaan waa arrin kale oo dhiig ku sii shubaysa dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka xisbiga nabad iyo nolol xubnaha ka midka ah ee dagaalada ku biiraya ayaa loo arkaa awood iyo sidoo kale dhaqaale ku siyaaday dagaalada ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab waana arrin uguba in xisbiga nabad iyo nolol ay u hoggaansamaan tala ka soo baxday xisbiga ay sahayaan ee Dimo Jadiid oo ah in dagaalka ka dhanka al-shabaab dhammaan saamilayda siyaasadeed ay dhab ay ka dhigaan horey nabad iyo nolol ayaa loogu eedeynayay in ayna ku qanacsaneen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka maadaama la sheegay 5 sano ee la soo dhaafay oo xisbiga nabad iyo nolol ay talada dalka ay hayeen al-shabaab ay qabsadeen deegaano badan ciidamada dawladana kaliya ay ahaayeen kuwa looga hortaga banaanbaxyada lagu diidan yahay hab maamulka nabad iyo nolol balse aana dhaqaaqin qodobada kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino ciidanka dawladda ayaa gebi ahaanba isaga soo baxay deegaanka masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaalo qaraar oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay halkaasi dagaalada ka dhacay deegaanka masaajid Cali Guduud oo ahaa kuwa aan waxba isku reeban hubka culusna lisku adeegsaday ayay ciidamada dawladdu waxay markii hore u suura gashay in ay ku gacan sareeyaan dagaalka masaajidka Cali Guduud balse weeraro 4 jiha oo al-shabaab ay ku qaadeen oo rogaal celin ahaa ayay u suura gashay
in dib gebi ahaanba ay ula wareegaan deegaanka masaajidka Cali Guduud iyadoona ciidamada dawladda ay isaga soo baxeen dhammaan furimihii ay kaga sugnaayeen deegaanka masaajidka Cali Guduud. deegaankaasi waxaa ka dhacay dagaaladii ugu qaraaraa ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhaca, waxaana dadkii ugu badnaa ay bilaabeen in naftooda ay kala cararaan deegaanka masaajidka Cali Guduud oo ay al-shabaab ay qabsadeen maadaama ay ka cabsi qabaan in shalay ciidamada dawladda ay laamo qoyan ay ku soo dhaweeyeen al-shabaabna sidaa darteed ay u beegsadaan deegaanka masaajidka Cali Guduud. dadkii ugu badnaa ayaana isaga barakacay ayagoona qaarkood gaaray magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku teedsan. dhaawacyadii ugu badnaa oo askara iyo dad shacab ah ayaana la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. askarta ugu badan waxaa booqday mas'uuliyiinta dawladda oo kormeerayay xaaladooda caafimaad. al-shabaab ayaa waxay xilligaani wajahayaan culeysyadii ugu darnaa oo ay wajahaan tan iyo soo ifbixidii ururkaasi muddo ka badan 15 sano, waxaana deegaanka masaajidka Cali Guduud uu ka mid yahay deegaanada muhiimka u ahaa kooxdaasi oo ay hadda dib ula wareegeen. qodobada kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa markii u horeysay si lama filaan ah wuxuu kaga mid noqday wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u raacay dalka Jabuuti, waxaana safarkaasi Siciid Dani uu ku aaday Jabuuti uuna qayb kaga noqday wafdiga madaxweynaha soo shacbaxaya xoolo la xiriira in qorshaha uu wado ee ah muddo kordhinta maamulkiisa uu halkaasi la aaday. Siciid Dani ayaana ka soo dhex muuqday wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee gaaray dalka Jabuuti kadib markii madaxweynaha iyo Siciid Dani ay shalay ku kulmeen xarig jarkii dekadda cusub ee Garacad, iyadoona Siciid Dani uu madaxweynaha ka codsaday inuu u raaco dalka Jabuuti, balse siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda Siciid Dani ayaa waxay sheegeen in Siciid Dani qorshaha uu aaday dalka Jabuuti ay tahay in uu taageero u raadiyo muddo kororsigiisa uu maalmaha soo aadan ku dhawaaqi doono. Siciid Dani ayaana qorshihiisa u bandhigay saacadihii la soo dhaafay inta uu ku sugnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud deegaanada Puntland in uu rabo muddo kororsi 2 sano ah maadaama hoggaanka dowlad goboleedyada kale ee dalka ay sameysteen muddo kororsi, taana ay dawladdu ay ku taageerto Siciid Dani. Siciid Dani iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa markii u horeeyay oo ay safar bannaanka ay isku raacaan, iyadoona la sheegay in Siciid Dani uu ka soo dibcay xaggii uu markii hore ka taagnaa siyaasadda uu ku diidnaa dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. villa Soomaaliya oo qarinaysay in Siciid Dani uu ka mid yahay wafdiga madaxweynaha ayaa kulankaasi ku sheegtay in madaxweynaha iyo wafdi kooban oo xafiiskiisa ka tirsan ay Jabuuti ay u gaareen sidii ay kaga qaybgeli lahaayeen shir looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo abaarta ka jirta dalalka ku yaala gobolka. qodobareedka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeena haddii aan sii faahfaahino, ciidamada beesha Murasade ayaa u dhaqaaqay in deegaanadooda Ceelbuur iyo deegaanada kale ay ka saaraan dagaalamayaasha al-shabaab, balse kala shaki xoog leh ayaa soo kala dhexgalay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada beesha Murasade oo ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee degmada Dayniile Mr. Jacfar oo hadda ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa la sheegay in ciidamada saraakiisha hogaaminayso iyo Jacfar ay isku qabteen tabta iyo xeelada loo wajahayo dagaalka ka dhanka ah Ceelbuur oo muddo dheer al-shabaab ay ku sugnaayeen. beesha Murasade ayaana maxaas waxay geysay ciidamadii ugu badnaa oo ay beeshu ay leedahay, iyadoona gaadiid dagaal ay beesha leedahay kol hore halkaasi la sii geeyey. wararka la helay ayaa sheegaya in xildhibaanada iyo siyaasiyiinta beesha qaarkood dhaxdooda ay ku kala qaybsameen habka loo wajahayo dagaalka degmada Ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka Wabxo, kuwa oo isku qabteen aragti ahaan. xildhibaano ayaa qaarkood soo jeediyey in dagaalka Ceelbuur iyo Wabxo ay ku biiraan, halka xildhibaanada qaarkoodna ay diideen. beesha Murasade ayaana ilaa hadda laga helin dhaqaaq ay u dhaqaaqeen deegaanadooda oo ay al-shabaab ay maamulaan. xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda beesha Murasade ayaa kol hore iska diiday inay ku biiraan dagaalka Ceelbuur
lagu xureynayo ayagoona sheegay in dad dowladda ku jira ay ka leeyihiin arrimo gaar ah si dagaalka ceelbuur ay u bilaabaan. guud ahaan saaxiibayaal barnaamij wareedkeennii aad kala socoteen Somali Press TV halkaa ayaan ku soo gabagabeynayaa. waxaa balse mar kale idinka codsanayaa in aad rukumataan channelkeenna si ay idiin soo gaaraan wararka iyo macluumaadka xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno. mahadsanidin dhammaantiin saaxiibayaal.